nin ayaa isagoo socdaal ku jira xilli habeennimo ah waxaa ka halaabay gaarigiisii. waa uu soo degtay waxuuna indhiindheeyey hareerihiisa bal inuu arki karo gaari socda ama guri ka agdhow. isla markiiba waxay indhihiisu qabteen guri aanan sidaa uga fogeyn. dhankiisa ayuu usoo dhaqaaqay waxuuna bilaabay inuu garaaco albaabka. yaa waaye ayaa cod hoose oo waayeelnimo ka muuqata lagu yidhi. waa aniga socoto ayaan ahay, gaarigii baana iga halaabay ee taleefan ma idinka dirsan karaa ayuu ugu warceliyey. haweeney 70 jir ah ayaa albaabkii ka furtay, si wacanna u soo dhaweysay. markii uu taleefanka dhammaystay damcayna inuu baxo ayuu derbiga guriga milicsaday. mise waxaaba ku dheggan sawirro aad u qurux badan oo ula ashqaraaray. waxa uuna is yidhi malaha farshaxamiiste weyn ayuu nasiibka kugu simay inaad gurigiisa timaado. isaga oo yaaban ayuu islaantii weydiiyey, yaa sawiradan sameeyey? waxay ku tiri, aniga. isla markiiba waxa uu la soo booday, suuqa farshaxanka gacanta ah ma geysay sawiradan? meeqa ayaana lagu yidhi. waxay ugu jawaabtay, maya ma geenin suuqa, sababta oo ah ninkayga ayaa igu yidhi sawiradaadu aad ayay u foolxun yihiin, loogumana talagelin in suuqa la geeyo. adigana waxa aad ku habboon tahay inaad barbaariso ciyaalka ee fadlan gurigaaga si degan u fadhiiso. xilliga uu sidaa i leeyahay odagaygu gabar yar ayaan ahaa, waana aaminsanaa warka uu ninkayga ii sheegay. maalinka ayaan go'aansaday in sawirada aan sameeyo aan ku qurxisto guriga. ilaa hadda oo aan 70 jir ahayna sidaa ayaan sameeyaa weli, ayay tiri. ninkii waxa uu ka codsaday inay u ogolaato sawiradan inuu suuqa geeyo, tusana dadka ka shaqeeya iibgeynta sawir gacmeedka. iyadoo ka cagajiidaysa kana baqaysa in laga heli waayo sawiradeeda ayay ka aqbashay. sawiradii ayuu ninkii suuqa geeyey, waxayna noqdeen kuwo aad loola dhacay, qiimo sarena lagu kala iibsaday. haweeneydii waxa ay noqotay 70 jir farshaxanka iyo sawirada gacanta ku caan ah. 31 sano ayay sii noolaatay, waxayna heer sare ka gaartay dhanka sawirada, iyadoo mid ka mid ah qiimaha sawiradeeda uu gaaray $1,200,000. haatan sawiradeedu waxa ay yaalaan madxafka Louvre ee ku yaala Paris iyo kan New York. ma ahan khiyaali sheekadan ee waxa aanu ka sheekeynaynaa Anna Marie Robertson oo loogu yeero Grandmother Moses ama ayeeyadii Muuse. haddaba sheekadan waxaan ka faa'iidnay 3 shay. waa kow wax walba oo lagu sheego ha iska aaminin. marka hore naftaada aamin oo ku kalsoonow, kadibna sameey waxa aad ka hesho ama jeceshahay, hana uga harin dadka kale dartooda, sababtoo ah indhaha dadka oo dhan ma wada qabtaan wanaagga iyo quruxda. waa qodobka labaad. guushu mar walba waxa ay ku timaadaa qaab aanan la filayn, sidaa awgeed waa inay indhahaagu furnaadaan, aadna noqotaa qof u diyaarsan ka faa'iidaysiga fursadaha ay nolosha siiso. waa qodobka ugu dambeeya ee 3aad. qofna ha ku wada kalsoonaanin, qofna ha ka wada kalsooni bixin, sababtoo ah garan Moses ama ayeeyadii Muuse waxaa horumarkii ay yaraanteedii gaari lahayd ka hor istaagay saygeeda oo ah ruuxii dadka ugu dhowaa, waxaana caawiyey nin socoto ah oo ay dani ku soo leexisay.